بسم الله الرحمن الرحيم. maanta maalin oo waxaynu ahayd inaan kusoo dhaweyno safiirada u fadhiso human right-ka xuquuqul insaanka dalka Switzerland Geneva. qoftaas oo ahayd safiirada oo aad noogu caawisay Soomaaliya inay madax banaanedeeda laga shaqeeyo si hufan oo dhiirigelin oo noo taagneed caawiye maalin aan ku casuumnay maanta casuumad u fadinay ugu soo booqdo Muqdisho maatan xafiiski soo booqatay oo ka wada hadleynay arrimaha Soomaaliya sidii loo dardargelin lahaa guddiga madax banaan iyo shaqooyinka u taalo iyo sidii wada jir ah oo bilateral leh labada dal ka dhaxeeyo sidii loo hirgelin lahaa taas oo aad muhiimad noogu ahayd in booqashadeed halkan imaato oona ka wada hadalno Soomaaliya ahamiyad weyn ay siinayaan ra'iisul wasaaraha la kulmay safaaradii ayadaba ambassadorada taasoo wada hufnaan ka soo baxday iyo sidii loo xoojin lahaa xiriirka labada dal ayagoo hore xiriir wanaagsan la leenahay dalka Ingiriiska oo haddana ku soo saaciday arrimaha xuquuqul insaanka ayadana u mahadcelinaa iyo soo dhaweynteeda maanta ku soo dhaweynay ku faraxsanahay inay halkan ugu soo booqato waa markii koowaad ee imaanayso dalka Soomaaliya aad iyo aadna waxa ugu mahadcelinaa waxay tahay dalka Ingiriiska si oo wada jir ah ee noogu hiiliyeen arrimaha xuquuqul insaanka